متأملا في قدرة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ودرسي لحاد كتاب كأني إرشاد طلابي إلى نهج الصواب. وحين سوق قادني أما إنو كل حجرني تعريف كعلومة شريعة. علومة الشريعة علمي أفراد وحنقونيا الفقه وأصوله. فقه هي أصل كيسة، labadaba mid walba si gooniin u tacriifin doonaa ogana hadli doonaa. laakiin ciwaanka darsigan lixaad waxaa weeye alfiqhu wa usuuluh. alfiqhu luqatan xagga luqada alcilmu bishay, shayga oo la ogaado ayaa la yidhaahdaa fiqhi. walfahmu lahu, iyo in la fahmo. in cilmi loo leeyahay iyo in la fahmo waa kala labe ogaada. qof waxaad arkaysaa qur-aanka xifdisan ama mas'alada yaqaana laakiin aanan fahansanayn. marka shayga in la barto oo cilmi ahaan loo ogaadana waa tacriifka fiqiga waa ka mid. waxaa kaloo ka mid ah walfahmu lahu, in la fahmo shaygii. marka shaygoo la barto oo la fahmo ayuu fiqigu noqonayaa. walfitnatu kasida. walfitnatu kasida. kasida macnaheedu waa maxay? waa fahankii juz ka mida weeye, in wixii loo dhug yeesho oo xikmaddii iyaa soo gelaysa meesha. wagalaba waxaa gaalib noqday calaa cilmi ddiini, cilmiga diinta ayaa fiqiga loo isticmaalaa lisharafihi, qiimihiisa daraaddeed baana loogu bixiyey. fiqhiga waxaan akademiga la yidhaahdiyo hadda dictor waa faqiih. dictora marka fii mowduucin maa buu yuu faqiih ku noqday, kadibna waa dictor, saasaa la yidhaahdaa. diimihii hore iyo waxaasna saasaa lagu odhan jiray. laakiin hadda fiqhi waxaa u qaalib noqday fii cilmi ddiin, culumta diinta ayaa fiqigii qaatay lisharafihi, diinta maadaama ay diin sharaf la tahay iyada ayaa qaadatay magicii, oo culumtii kale markaasi faqiih lama yidhaahdee waxyaabo kale ayaa la yidhaahdaa. marka fiqiga luqad ahaan sidaasaa la yidhahdaa. waistilaaxan, istilaaxa dadka ahlu sharciga ahna huwa alcilmu, tanwiintaasi miimka saaran waa khalad. huwa alcilmu way, al iyo tanwiin ma wada kulmaan. huwa alcilmu cilmi weeye, aqoon. bilaxkaami, axkaamtii aqoon loo yeesho, axkaamtii alsharciyati sharciga loo nisbeeyey. alcamaliyati ee camaliga ahayd ee la qabanayay. almuktasabati ee laga kasbaday ama laga keenay. min adilatihaa shareecada adiladeeda. altafsiiliyati ee faahfaahsanayd. xagga istilaaxa ahlu sharciga fiqi waxaa la yidhaahdaa alcilmu bilaxkaami asharciya, axkaamta shareecada oo la barto ama la ogaado ayaa fiqi la yidhaahdaa. axkaamtii alcamaliyati ee camaliga ahayd ee braatig ahayd weeye. almuktasabati ee laga kasbanayay, meesha laga keenay weeye, laga kasbanayay. min adilatiha shareecada adiladeeda. ilaan sharciga islaamka markaan leenahay daliil buu leeyahay. marka daliilkaasa inta la fahmo ayaa xugum baa ka dhalanaya, xugumkaasaa fiqi la yidhaahdaa. adiladii altafsiiliyati ee ma aragtay dee ballaarnayd ee faahfaahsanayd. wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa cilmu laxkaami, fiqiga diinta ama fiqiga islaamka cilmu laxkaami baa lagu magacaabaa, axkaamta cilmigeedii. wa cilmu lfuruuc, furuucda cilmigeediina waa lagu magacaabaa. oo usuushii aaway, usuushii waa qur-aankii iyo xadiidkaynu soo qaadanay.
cilmu lfuruucna waa lagu magacaabaa. marka sawir laga bixinayana waa geedka jiridiisa iyo guntiisa waa qur-aankii iyo xadiidkii weeye. laamaha geedkana waa fiqigii, saasaa loo suureeya. waa cilmu lfuruucna waa la yidhaahdaa. cilmu laxkaam iyo cilmu lfuruuc waa isku mida ogow. wa cilmu shariica, shareecada cilmigeediina waa la yidhaahdaa. shareecada cilmigeediina waa la yidhaahdaa. wa cilmu lmucaamala, wax isdhaafsiga, in wax la kala badasho sida wax kala gadashadii iyo wax la mid ah isna waxaa la yidhaahdaa fiqiga waa la yidhaahdaa. walfiqhu lasqar, walfiqhu lasqar, fiqigii weynaana waa la yidhaahdaa. cafwan fiqigii yaraana waa la yidhaahdaa. yuqaabiluhu wuxuu qaabilayaa, aw yuqaabiluhu waxaa qaabilaya dheh alfiqhu lakbar, fiqigii weynaa alladii huwa cilmu tawxiid. aan hore aan usoo qaadanayo tawxiidku waa alfiqhu lakbar. marka fiqiguna tawxiidkii fiqhu lakbar buu noqday. fiqiguna marka wuxuu noqonayaa alfiqhu alasqar, axkaamtii tawxiidka ka yarayd xagga darajo ahaan ka yarayd baa markaa la yidhaahdaa. wa hada alcilmu, cilmigan min ahami alculuumi alsharciyati, culuumta shareecada kuwa ugu muhiimsan buu ka mid yahay. wa awlaaha, kuwa ugu mudnaanta badan weeye. bitalabi, xagga in la dalbo oo la raadiyo. waa culuumta shareecada ama culuumta sharciga oo hadda aynu ku guda jirno. cilmigan fiqiga ah waa cilmiga ugu muhiimsan. wa awlaaha bitalab, xagga markii la dalbayo la baranayana in isaga loogu mudnaanta koobaad la siiyo weeye. licaamati nnaasi, guud ahaan dadweynaha, iyo wa khaasatihim, kuwa gaar ahaaneedba. yacni gebi ahaan iyo gaar ahaaneedba, guud ahaan iyo si gaar ahaaneedba dadku. caamatu nnaas, bahweynta muslimiinta, iyo majaamicda iyo maaragtay jaamacadaha iyo waxaas, inay labadaba bartaan weeye ama ihtimaam ay siiyaan cilmigan fiqiga ah. sababtu waa maxay? liannahu huwa alcilmu, waa cilmi alladii cilmigaasoo yunadimu kuu habaynaya calaaqata annaasi, yunadimu habaynaya calaaqata annaasi, dadka calaaqadooda birabbihim, rabbigood ay la leeyihiin. xiriirka dadka iyo rabbi u dhaxeeya, cilmiga nadaamiya ee saaseel, tuko, soon, salaad, xaj yidhaahdo waa fiqiga. liannahu maxaa yeelay huwa alcilmu alladii, cilmigaasoo yunadimu habaynaya calaaqata annaasi, dadka xiriirkooda birabbihim, rabbigood ay la leeyihiin, min khilaali alcibaadaat, iyadoo loo sii marayo cibaadaadkii. cibaadaadku marka waxaa weeye waa salaadii, waa zakadii, waa soonkii, waa xajkii iyo cibaadadii kale. wa calaaqaati nnaasi, dadka xiriirkooda bacdihim bibacdin, barkood barka kale ay la leeyihiin. dadka xiriirka iyaga ka dhexeeya, siday isu guursanayaan, sida hadday dagaalamaan ay u garamayaan, ay isu maxkamadaynayaan, siday wax isugu hibaynayaan, sida ay wax u kala ijaaranayaan. xiriirkaa dadka ka dhexeeya cilmiga habaynayana waa cilmiga fiqiga weeye. min khilaali almucaamalaat, wax isdhaafsiga iyo mucaamalaadka ayay iyadana loo marayaa markay dadku ay wax kala iibsanayaan. fa huwa marka isagu cilmu lxayaa, waa nolosha cilmigeedii weeye. wa cilmu lmucaamalana waa la yidhaahdaa, wax isdhaafsiga iyo mucaamalada cilmigeedii. wama ddiinu, diintuna maba aha ilaa mucaamalatun, wax isdhaafsiya wax isweydaarsi ma ogiye. diintu wax kale ma aha. imaa xiriir adiga iyo rabbigaa idinka dhexeeya, ama haddii kale xiriir adiga iyo dariska, adiga iyo xaaskaada, adiga iyo macalinkaada, adiga iyo waalidka, adiga iyo walaalada, adiga iyo wahaakada dawaaleyk. waa jaantaas marka, waa jaantaa rogan weeye. cilmigu marka diintu mucaamil ma ogiye wax kale ma aha. wama ddiinu ilaa mucaamala. fa huwa cilmiga fiqiga ah alladii midka weeye yunadimu habaynaya alcibaadaati, cibaadaadkiina si gaar ahaaneed marka hore si duuduub ah loo sheegay. cibaadaadka lafsadooda cilmiga habaynaya kala dhigdhigaya waa fiqiga. bianwaacihaa, cibaadaadka anwaacdeeda, cibaadaadkii anwaacdii almukhtalifati
إسخلاف سنيد من صلاة صلاتي وصيام صونكي وحج حجكي وزكاة زكدي إيه وما يتعلق بذلك وحي انت على حريرة صلاة بالويري ويسدي بالله حريرت صلي اللي قلت كان يبقى على حريرة شركي إيه إن النظيفية على حريرته marka salaad iyo soon iyo zako iyo xaj iyo baaqi cibaadaad haddana guud gaar ahaan waxa si kala dhigdhigaya waa cilmiga fiqiga weeye sidaa daraadeed baa waxaan ugu tilmaamay inuu yahay cilmigan isaga ah cilmi mudan in isaga waxbarashada laga bilaabo si ay salaadii kaaga asaxdo oo nijaasada oga leexato laysa macna dalika quraanki buu ka qiimo badan yahay isaga labsadiisaba de quraanki oo la sheelay laakiin hadda quraanki buu ka qiimo badan yahay ma aha oo xadiidkii buu ka qiimo badan yahay ma aha laakiin marka nolol maalmeedka qofka muslimka alle eego waa cilmiga ugu mudan maxaa yeelay hadduu qofku soo islaamadee salaadii duhur baa sugaysa marka waa in la bara sida loo weysaysto waana fiqhigii markaas ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamadan rasuulullah hadduu yidhaahdo nin maaragtay gaal ahaayoo soo islaamay waxa ku xiga waa in salaadii la baraa ee la odhan maayo hadda fiqigii caqiidada aad ha usii barto oo xadiidka 100 xadiid ha xifdiyo la odhan maayo mar haddii salaadiiba ay sugaysana fiqi markaa qofkaa kama maarmo marka caamatu nnaas iyo wakhaasatihimba cilmi aysan ka maarmin nolol maalmeedkooda weeye وينظم وحو هبينيا علمك العلاقات حريرك والمعاملات وحسدافسك من خلال أبواب عفوا ميلبان كبودي وما يتعلق بذلك من مباحث علم بارس مباحث وموضوعات موضوعية يعتبيو كتاب النكاح كتاب الحج كتاب وهكذا كتاب الجنايات موضوعي وأساس مباحثنا وحاوية وميلها علمي بارس توي علمي بارس هي موضوعية هي علمي بارس لبضب مباحث هي موضوعات ولبا أري أما لبا مصطلح وفقهاء وياد واستعمالان marka waa chapter iyo waxay kala yihiin iyo baaris wixii la baarayo loo kuurgalayo وينظم علمه وحو هبينيا دال علاقاتكي بو هبينيا iyo والمعاملات وحسدافسي من خلال أبواب المعاملات iyadoo loo marayo baababka wax isweydaarsiga min bay'in wax kala gadashadii wa shiraa'in wa baac iyo shirada waa isku mid baacana waa ninka xoolaha haysta shaygan la iibsanayo ee cayntiisa computer ba matalan qof iibsanaya qofna de lacagtii buu haya qofna computerkii buu haya kan computerka hayo baa'ic baa la yiraahdaa kan lacagta hayana mushtari baa la yiraahdaa marka min bay'in iyo wa shiraa'in iibgeyn iyo gadasho iyo wasalamin salamku waxa weeye waa beec oo laakiin dayn ah waa beec waxbaa la kala gatay laakiin waa dayn oo waxaad odhanaysaa hadda aad buu nolosheena nolol maalmeedkeena caadiga aad buu ugu badan yahay dadkan online wax ka iibsado beeceedu waa beecu salam waayo qofku wuxuu odhanayaa sawirkaas mobilkaas aan arkay sawirkiisa ee caynkaas ee 2017 soo baxay ayaan kaaga iibsaday lacag intaan dhan ma iga iibsatay kontraadi baad saxiixaysaa warqadii baad celinaysaa waxa lagu soo dirayaa marka 14 casho waxa lagu soo dirayaa mobilka ama computerki waa beecu salam marka beec caadiga wuxuu uga duwan yahay beecii waad ag taagan tahay oo shaygan iga iibi baad leedahay waa beec caadi ah markaas marka lagu tilmaamayo shayga aad rabto ee lagu sifeeyay waa saas waa caynka ee aad tilmaanta ku iibsatana salam baa la yiraahdaa wa salamin maaragtay beecii la dib la sifaynayay iyo wa ijaaratin wax kala ijaarashadii iyo wa qardin wa amaahdi midan waa in wax la kala amaahdo iyadu beec ma aha laakiin hebelow 10,000 oo koron baan u baahanahay idaymi waan ku daymiyey iyo wa mucaamalatin wax isdhaafsi ziraaciyatin beeraha loo nisbeeyey iyo wa tijaariyatin ganacsiga iyo wa sharikaatin sharikado iyo wa gayri dalika waxaan intaas ahayn oo mima kii ka mid ah yastajiddu cusboonaanaya min mucaamalaati nnaasi dadka wax isdhaafsigooda ilaa hadda waad aragteenoo wixii way sii casriyoobayaan online ba hadda la marayaa marka waxyaabahan awal kutubta wixii ku qornaa waxaan ahayn inaad aragtaa laga yaabaa laakiin wax kasta oo soo cusboonaanaya oo dadku ay wax isku dhaafsadaan cilmiga habaynaya weeye fiqigu
wa axkaama alusrati usrada axkaamteediina wuu habaynayaa iyo wa fiqha nikaaxi nikaaxa fiqigiisii iyo wamaa yatacallaqu waxa la xidhiira bihimaa usrada iyo nikaaxa guurka iyo qoyska wixii la xidhiirana iyadana wuu habaynayaa wakada waxaa kula mida almawaariithu dhaxalkii baa kula mida iyo watarikaatu waxyaabihii uu ninka qofkan dhintay uu ka tegay tarikada maalka uu meydku ka tegay baa la yidhahdaa mawaariith dhaxalna waa la yidhahdaa laakiin dhaxalka waxaa soo wada gelaya tarikadii iyo waaridkii oo isku jirtaa mawaariith laysku yidhaahdaa dhaxalkii iyo tarikaadkii iyo walaqdiyatu xukunkii waa jamcu qaadin weeye qaadinimadii iyo guddoonkii iyo wixii la mid ah iyo washahaadaatu markhaatiyadii wadacaawaa iyo dacwooyinkii dacwo af soomaaliga dacwaan ku nidhahnaa qof baa matalan qof wax ku sheeganaya waa in intuu maxkamadda tago uu soo dacweeyaa oo qofkii lasoo qabtaa weye soo maaha shahaadooyinkana waxaa weeye labadii qof markii kan lasoo qabto kanna uu dacweeyo kii dacweeyena waxaa la odhan war ninkan maxaad ku sheeganaysaa markaasuu wixii buu sheeganayaa wixii baa waxaa laleeyahay markhaati u keen shahaadaadku waa kaas walbayinaatu waa xujooyinka iyo wax la isdhaafsanayo iyo walaymaanu dhaarihii iyo wanuduuru nadariyadii sharadkii iyo walatcimatu cuntooyinkii wixii la cunayay iyo waddabaa'ixu wixii la gowracay iyo wagayriha waxaan inta ahayn waxaasoo dhan marka cilmiga fiqiga ayaa sida la ysu dhaxlo sida la ysu xukumo sida markhaatiga loo caddeeyo sida xujada loo sugo sida dhaarta loo aqbalo albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara ayuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam nadarkii yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowman kana sharuhu mustatiira adcimadii iyo dabaa'ixdii iyo waxaasoo dhanna cilmiga fiqiga ayay soo gudagelayaan so uma jeedid marka inuu cilmi muhiim ah uu yahay fa huwa isagu cilmu laxkaami axkaamta cilmigeedii weeye walmacruufu kan loo yaqaano weeye bilxalaali walxaraam warka baan kuusoo gaabiyaba waa cilmiga loo yaqaanee macruufka ku ah bilxalaali walxaraam waxan waa xalaal waxan waa xaraam cilmiga ka hadla weeye walidaa sidaa daraaddeed faqad callaqa annabiyu nabigu wuxuu ku xidhay sala allahu calayhi wasalam iraadat allaahi alkhayra ilaahay doonistiisa khayrka uu la doono lilcabdi addoonka uu la doono wuxuu ku xidhay bitacalumihi cilmigan barashadiisa walidaalika faqad callaqa annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu ku xidhay oo ku guntay iraadat allaahi ilaahay doonistiisa wuxuu ku xidhay alkhayra khayrka uu doono lilcabdi addoonkiisana uu khayrka la doono bitacalumihi fiqiga barashadiisa faqaala wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam man yurid illaahu qofku ilaahay khayr la doono bihi isaga khayran man yurid illaahu qofku ilaahay la doono bihi isaga khayran khayr yufaqihhu wuxuu fahansiiyaa fi ddiini yufaqihhu waa fiqigii weye wuxuu kasaa wuxuu dhug u yeeshaa wuxuu fahmaa wuxuu bartaa lama dhihin wuxuu fahmaa marka fahanka diinta allaahumma faqihhu fi ddiin wacallimhu ta'wiila ayuu nabiga ibnu cabaas ugu duceeyey radia allahu canhuma marka man yurid illaahu bihi khayran yufaqihhu fi ddiini xadiidka bukhaari muslim baa soo wariyey waa xadiidu mucaawiya oo aad garanaysaana macruufka ahaa safiinatu najaaga xitaa waa lagu bilaabi jiray macnaahu arrinkaa macnihiisu marka anna man laa yurid illaahu qofkuusan ilaahay la doonin bihi maaga qofka bihi manka dheh khayran khayr uusan la doonin laa yufaqihu fi ddiin qofkuusan ilaahay khayr la dooninna ma doonaysaa inaad ogaato haa waa qofkuusan ilaahay diinta fahansiinin wa fi lathari atharna waxaa ku sugan athar baa wuxuu ahaa atharka isaga a marfuuc weeye sanadkiisana waa mawquuf bisanadin daciif laakiin waan sheegaynaa insha allahu maadaama fiqiga uu ka hadlayo athar baa wuxuu ahaa faqiihun nin faqiih ah oo diinta si dhaba u yaqaana waaxidun oo keliya ayaa ashaddu daran cala shaytaani shaytaanka min alfi caabidin kun ilaahay cilmi la-aan caabudaysa oo aan wejiga dhul ka qaadaynin oo rukuucsan oo sujuudsan oo qur-aanka laga yaaba inay maalintiiba mar dhammeeyaan haddana aan cilmi lahayn waxaa ka shaytaanka oga daran hal faqiih baa oga daran faqiihun waaxidun hal faqiih
waaxidun oo keliya ayaa ashaddu daran cala shaytaani shaytaanka min alfi caabidin kun caabid buu oga daran yahay lianna shaytaana shaytaanka yastatiicu wuxuu awoodaa falsafadii uu kuu sheegayay ee aharku uu xumbaarsanaa buu kuu sharxayaa markii sharaxa la sharxana waa maragma doonto waa arrin adigaba aad ka garaabayso lianna shaytaana shaytaanka yastatiicu wuxuu awoodaa an yufsida inuu fasahaadiyo cibaadata alfi shaksin kun qof cibaadadood inuu ku ciyaaro shaytaanku awoodaa kuwaasoo yacbuduuna allaha ilaahay caabudaya bilaa fiqhin kasma la-aan iyo garasho la-aan iyo fahan la-aan kun ilaahay saa u caabudaysa shaytaanku wuu fasahaadin karaa waad aragteen hadda yacni shiicada waxay samaynayaan iyo caruurtan yaree la wada dakdakraye mindida madaxa lagu wada dhufanaye dhiigga laga daadinaye iyo dadkan un ciidda xabadka ku xamaaranaye meel fog intay kasoo un xamaartaan sida maansaluuleydii karbala iyo meeshuu sayid xuseen ku aasnaabaan u gurguuranaynaa leh war tacdiibkan iyo waxan qabriga nabigan loo gurguuranin oo saxaabada iyagoo jooga ayaa nabiga la aasay sala allahu calayhi wasalam cid isku jejabisayna ma jirto cid xaggiisa u xamaaratayna ma jirto idinkan hadda xamaaranaya ee fahamku idinku qalloocday iyo annagabana waxaan isku waafaqsannahay nabiyullaahi moxamed iyo alimaam xusein inuu nabiyullaahi moxamed uu fadli badan yahay bal caliy bna abi aalib oo waalidu imaamka xuseyna inuu ka fadli badan yahay baan aaminsanahay loomana gurguuranin ee maxaad ka wadaa marka waxaa weeye dee kuu jawaabi ay maayaane waa un nin un fahamkii uu ku qalloocday weeye caliy bna abi aalib ninka dilay khawaarij buu ahaa ilaahay buuna ugu dhowaanayay cuthmaan ibnu cafaan ninka dilayna isna nin khawaarij ayuu ahaa ilaahay baan ugu dhowaanayay buu ku leeyahay yacni nimankii uu nabiga taskiyeeyey ee uun rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam iyagoo nool uu yidhi ahlu janna tihiin jannadaad gelaysaan caliyun fi ljanna wa cuthmaanun fi ljanna uu yidhi ma nabigaa qof khaldamay oo qalloocsan jannadaad gelaysaa dhahaya bay waxay leeyihiin cali waa gaaloobay cuthmaan waa gaaloobay waa in la dilaa marka waxaasina waxaa weeye waa fahan qalloocday weeye fahanka hadduu qalloocdana wax badan buu kharibayaa waa wax hadda adduunka ka dhacaya wax badan oo ka mida dadkuun allahu akbar isku wada leh oo nin walba markuu dagaalkii u dhammaado labadii qolaba afhayeenadoodii ay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin iyo wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi iyo ay shacairta islaamka ku bilaabanayaan wabillaahi towfiiqna ay ku khatimayaan hadde waa yahay kiinee gaal ah waa dad isdilay baa tihiin oo annaga muslimiin baa noola wada muuqataane xaalkiinu waa sidee jawaab looma helayo nin walba wuxuu leeyahay bismi illahi raxmaan raxiim gaaladii baan laynay waana dhici kartaa inuu dee qolo saxsan tahay laakiin gaal iyo muslim islaynaya waa la yaqaanaa gaalkana ilaahay ma yaqaano bismillaahina ma yaqaano alxamdulilahina ma yaqaano muslimkana bismillaahi iyo alxamdulilah iyo salliga nabiga iyo wabilaahi towfiiq iyo khitaamkaasuu yaqaanaa laakiin mafaahiimtu markay isku khaldanto dhibaato weyn baa runtii imanaysa marka faqiihun waaxidun ashaddu cala shaytaani min alfi caabid lianna shaytaana yastatiicu an yufsida cibaadata alfi shaksin kun caabid cibaadadood inuu shaytaanku fasahaadiyuu awoodaa kunkaasoo yacbuduuna allaha ilaahay caabudaya bilaa fiqhin walaa yastatiicu shaytaan ma awoodo an yufsida inuu fasahaadiyo cibaadata faqiihin waaxid hal nin imaam axmed oo kale sheikhulislaam ibnu teymiya oo kale a'immadii lasoo maaragtay tacdiibka iyo dhibaatada loo geystay hal nin oo faqiih ah oo si fiican dee wax u garanayo raasikha oo dhisan shaytaanku ma awoodo inuu xaqa inuu ka weeciyo walidaa saa daraaddeed buu qaala sayidunaa caliy imaamu cali radia allahu canhu wuxuu yidhi innahu shanigu laa khayra fii cibaadatin laa cilma fiiha cibaado khayr male aan cilmi lahayn cilmi la-aan ilaahay la caabudayo khayr ma laha walaa khayra fii cilmina khayr ma laha laa fiqha fiihi uusan cilmi aan fahanin ku jirin isna khayr ma leh cilmi aadan fahansanayn falaytaka uma laytaka maa fahimta weeye inaadan fahmin baa lagu qaatay inaadan baranin baa lagu qaatay falaytaka uma laytaka maa fahimta walaa khayra khayr ma leh fii qiraa'atin qur-aan la akhriyana khayr ma le buu yidhi qiraa'adaasoo laa tadabbura macahaa
qur-aanka aan lagu tadabburayn qur-aanka aan lagu tadabburayn waqifuuhum inahum mas-uuluun buu akhrinayaa haddanana mas-uuliyaddii buu ku ciyaaraya carruurtiisa marka qiraa'o aan tadabbur lahayn oo adiga inay kaa hadlaysa aadan ogeynna waxaa weeye qiraa'adaasna khayr badan ma laha ayuu imaamku yidhi waqad nadama muxamed ibnulxasan baa tix gabay ah ka sameeyey raximahu llahu tacaala almacnaa macnaha almawjuuda ee laga helayo fi hada alathari biqowlihi atharkan isagaa macnaha aan ku sheegnay atharka imaamu cali macnaha lagu sheegay tix yaroo gabay ahoo sheegaysa ayuu maxamed ibnulxasan uu tiriyey wuxuuna yidhi markuu hadalkii uu bilaabayay wuxuu yidhi tacallam baro fa ina alcilma cilmiga zaynun liahlihi cilmigu waa qurux dadkiisuuna qurxiyaaye waxbaro tacallam waxbaro oo cilmiga baro fa ina alcilma cilmiga zaynun liahlihi bilic iyo qurux buu u yahay dadkiisa wa fadlun waa fadli iyo dheeraad wa cunwaanun wa cinwaanunna waad dhihi kartaahe labadaba waa fuclaan iyo ficlaan bay ku timaadaahe wa cunwaanun waa astaan iyo cinwaan weeye likulli lmaxaamidi mahadin ilaahay la mahadiyo subxaanahu wa tacaala oo dhan iyo wax kasta oo wanaagsan ayuu cilmigu astaan iyo cinwaan u yahay wa kun ahow mustafiidan mid faa'iidaysanaya kulla yowmin maalin kasta ziyaadatan ziyaado maalin kasta cilmi kororso maalin kasta wax laqbayso maalin kasta mas'alo faa'iidaysa weeye wa kun mustafiidan mid faa'iidaysanaya ahow kulla yowmin maalin kasta ziyaadatan ziyaado min alcilmi cilmiga xaggiisa wasbax ku dabaalo fii buxuuri lfawaa'idi faa'iidooyinka badahoodana ku dabaalo oo marka dambe markuu cilmiga aad u akhriso qiraa'adaadu ay waasac noqoto itilaacaadu uu waasac noqdo marka dambe bad baad noqonaysaa badda dee biyaha xaggiyo xagga kaa maraya lagama wadee yacni xagga cilmiga iyo aqoonta iyo garashadaad bad ku noqonaysaa hebel cilmigiisa waa bad baa iyo soomaalidu tidhaahdaa tafaqah fahan fa ina alfiqha fahanka afdalu qaa'idin waa hoggaan midka u fadli badan ila albiri samahuna kugu hogaaminaya iyo wataqwa alla ka cabsiga fahanka in wax la fahmo waa afdalu qaa'idin hoggaan midka ugu fadliga badan weeye ila albiri xagga samaanta iyo wataqwa xagga alla ka cabsiga wa acdalu qaasidin ay maqsuudin mid loo qasdo wa acdalu maqsuudin mid loo qasdana midka u toosan weeye huwa isagu alcilmu cilmigii weeye fiqigu alhaadii ku tusinaya ilaa sanani lhudaa hanuunka wadooyinkiisa fiqigu waa cilmigii ku tusinayey ama kugu hanuuninayey ilaa sanani lhudaa hanuunka wadooyinkiisa huwa isagu alxisnu waa dhufayskaasoo yunjii korinaya ama ka badbaadinaya min jamiici shadaa'idi aafooyinka dhammaantood buu dhufayskaasi kaa badbaadinayaa waa dhufays la galo iyo meel lagu gabbado oo maxaad ooga gabban min jamiici shadaa'idi dhibaatooyin oo dhan ashadaa'id waa jamcu shidda shadaa'id iyo aafooyin oo dhan baad oga gabbanaysaa dhufayskaasna waa kee waa cilmiga fa ina faqiihan buu yidhi maxalu shaahidka waa kan fa ina faqiihan faqiih waaxidan oo keliya mutawarican oo laakiin xalaal miirad ah faqiih lama rabo iska fatwoonayo dowladdiisu waxay rabto faqiih lama rabo inta xoogay laaluusha la siiyo waxaan gabadhan ii fasaq waa fasaqan tahay orodoo iska kacdhahaya lama rabo laakiin faqiih ilaahay ka baqaya oo qudaadu waa saddex buu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam laba waa fi nnaar midna waa fi ljanna ilaahay subxaanahu wa tacaala hana badbaadiyee marka midka cilmi la-aan wax xukmana waa fi nnaar midka istutuska iyo waxaas ay ka tahayna waa fi nnaar ama laaluushka iyo waxaa qaata midka mas'aladana garanaya xaqana xugmiya kaas ay daacadna ay ka tahay kaasaa fi ljanna ah wayna dhib badan tahay waxaa lagu mathalaa naxwada dee waad garanaysaan baan u malay ibnu wardi inuu ahaa baan filaya allahu aclam ma xusuusto lafdiga qaadi lafdiga labsadiisa cibro ay ku sugan tahay buu yidhi oo waa sidee qaadi ciraabkii markii laga hadlayey
حركة اللبنا ويكو قدرنتها مدنا ويكا موقتا فتحدا كموقتا رأيت القاضي بس لكن جاء القاضي يا مررت بالقاضي لبضا ويكو قدرنتها مركا وحويري لفظي النحو ذا مركات في رسالة اللفظي كان قاضي القاضي أي عبرة يكون سجنتها وحاد ضلي يابو مركا النبي كان وحويري صدح قاضي قضاد وصدح لبوا في النار هو لبضا يكو قدر ريد بوليه مدنا وفي الجنة ومد كان ينصبدي أي كم قتيب ومركا وجه شبهه هذا عرابكي يوجد النبي اسكو مد ما هي لكن ماشي هذا الكلا يسجى كيسين أيوه إن الإسلام دونتا لقار ربا فهم بين أبها أنت أيضا لفظ هذه فقه فإن فقيها واحدا متورعا أشد أياد درن على الشيطان كان من 1000 عابد كن عابد وانصمرنا وكسعنا ولهذا سيدا درادت أرى وحان أركاه وإلته أرى ذن هذا واتي بمعنى علمي هيدوي رأى مرنوا رأي العين مرنوا تي رأي الفكر هيد مركا أي فكر أي علمي أي تهاي لو مفعول قادتا مركا أي إنها تهاي لكن هذا ما ولهذا سيدا درادت أرى وحا إي موقتوي رأي جيجو وحويه أو أي إلته هاي أو أن آمن سنة هي معنوه أن تعلم هذا العلم علم كان إسجا برشديس أن تعلم هذا العلم ماش أصلا ما كردقة أن تعلم هذا العلم علم كان برشديس من أوجب الواجبات واجباتك كان واجب سوي من أوجب الواجبات واجباتك متك واجب سوي على المسلم يقفك مسلم كان كواجبي حتى يعبد إلى كعبد ربه ربك وكعبد على بصيرة أي على علم وكعبده ويعتبر وحلو اعتبارنا ياه لغا سو قاديا هذا العلم علم كان إسجاء الثقافة أقونت جود الضرورية إيه لغا مارمان كان للمسلم قفك مسلم كا الثقافة العامة وأقون جود قفك مسلم كا diintiisa inuu aqoon guud ka haystaa la doonaya sida loo tukado sida nijaasada la isaga ilaaliyo sida ma aragtay waxyaabaha daruuriyaadka ama wax uu marka amalka uu ku jiro inuu aqoon guud ka haystaa la rabaa marka cilmigan fiqiga ah yu'tabaru الثقافة الضرورية للمسلم aqoonta guud ee qofka muslimka ah laga maarmaanka u ah ayaa markaasi laga soo qaadaya wala yu'daru لومن عذر داري بالجهل جهل لوم عذر داري فيه فقه الحديث جاهل بانكاه صلاة سيد لو تكذا ما أقارنه إن تجيه لقى يلي ماي وأنا صلاة سيد لو تكذا وأنا تقارنه لأنه إله الجهل لو ما عابده إلهي على بصيرة لو عابده ولا يسع واسعنا نقول ماي ومو واسع نقول يسأل المسلم وقفك مسلم كأه جهله فقه إن أو كجاهل نقضه ومو واسع نقول يعني فقه الجاهل بانوغا سوغانahay qofka laga ma yeelayo arinkaasna arin hadda ufuran ma aha wama takhabbatu an-nas dadka gabi dhacoodu ma ahaanin fil fatwada ay ku gabi dhacayaan un la iska fatwoonayo hebel hal la dilo hebel hal la laayo hebel qoliyaha waa mujaahidiin kuwaasna waa gaalo kaas la leeyahay waa bidco waa faasiqiin waxba yaan laga qaadanin dadka un fatwada loo qaybinayo وما تخبط الناس دتك جبي دعوة معهن في الفتوى فتوى يكون جبي دعيان وما تضارب الآراء هي آرادا إصدقين سيسكور مانيس هي وأحوالهم حال هذا دتك مركز أفيرسته من طلاق إسفرتان ده إيو وغيره طلاق غيرك إلا أثر راد أنبو أهادي ومن آثار الجهل جهل جاي أقون دردا راد كي ريبتوي بهذا العلم علمي أن الجهل لوجا سجيه علمي العظيم أوينا التدرج شرنشرة دي بان مركز الشيء في دراسة علم الفقه فقه مركز دوني سينات براتو وضدات مريسا كو دراسة كتاب سفينة النجاة كتابك سفينة النجاة قال لي هذا ما يريد الله به خير يفقهه في الدين إذا سكب اللوضة أياد مركز آد برانيسا وشرحه شرح الشيخ أحمد الشاطري وشرحي شرح عانه له شاطر اللي هذا شيخ آسا شرح يمني
marka kitaabkaasaad marka hore baranaysaa. labada safiino midna safiinatu najaa baa la yidhaahdaa, doontii badbaadada, midna safiinatu salaa, salaada doonteedii. midda dambe salaada iyo aada looga hadla, laakiin midda hore waxaa weeye ka hore waxaa weye najaasadii iyo aadaabtii iyo waxaasoo dhan baa ku jirta. marka kitaabkaa safiinatu najaaga aad ku bilaabaysaa. markaan saa leenahay waa naxnu macshara shaaficiyiin aan la hadlaynaa. dadka shaaficiyada ah madaahibtu waa qolyahan xanaabiladu mid kale ay ku bilaabaan, maalikiyadu mid kale ay ku bilaabaan, axnaaftu sidoo kale, laakiin shaaficiyada ayaan ka hadlaynaa. labo, daraasatu matni abi shujaac, ninkii ragga ahaa abi shujaac matnigiisii in la daraaseeyo weeye, bisharxi ibn اlqaasim calayhi. ibn اlqaasim waa nin shaarixaho abi shujaaca sharxay weeye. marka sharaxaas abilqaasimka ibnulqaasimka dhacafwan iyo abi shujaaca matniga ah ayaa iyadana in la barta fiican. marka hore dabcan abi shujaaca lagu bilaabaya, kadibna ibnulqaasimka tawshiixii ku xiji haddaad rabto, bayjuurigii, wahaakada. marka wixii fiqiga ku saabsan a'immadaasi shaaficiyada meeshay mareen ayuun baan annaga tilmaamaynaa, dembina dee ma aha. waa yahay. saddex, daraasatu matni cumdat saalik, kitaabkaasi linaqiib ayaad markaa matnigiisa ayaad baranaysaahoo waa kitaab cumdatu saalik baa la yidhaahdaa. aw amase nadmi zubadki ibnu raslaan iska lahay gabayga ahaa, matnigiisa ayaad baranaysaa isagana oo ilaa iyo 1,000 bayd ah meelaha. afar, daraasatu kitaab ilminhaaj, kitaabka minhaajka la yidhahdo daraasayntiisaaad u maraysaa, jaranjarada afraadna ay tahay oo lilimaamu nawowiyi calayhi raxmatullah. minhaajka waa kitaabkii soomaalida caanka ka ahaa, waa kitaab aada u qiimo badan. kitaabka isaga ah assiraaj ulwihaaj baa la yidhahdaa kitaabkaas, minhaajna waa la yidhaahdaa. kitaabkaasaad marka ku xujinaysa. almuhim safiinihii abi shujaaci, cumdatu saalik, minhaajkii, nin faqiih ahoo shaafici ahoo masalana aysan ka qarsoonayn cinda shaaficiya ayaad markaasi noqonaysaa. wa amaa usuululfiqi waa ku daraynaa insha allah. usuululfiqiga isagu ilan fiqi iyo wa usuuluhu baynu niriye. wa amaa usuululfiqhi, fiqigii hadda aan soo sheegnay ka soo baxnay usuushiisu, fa hiya iyadu almabaaxithu waa mabaaxista iyo mowduucyada allatii taasoo tumakkinu makaninaysa min istinbaati alxukmi, xugumka in laga soo dhambasho, xugumkii asharciyi ee sharciga ahaa, min adilatihi, adiladiisa in laga keensado. u fiirsa hadda meeshan waxay u baahan tahay maskax badan iyo caqli. usuululfiqigu waxaa weeye fiqigii ma aha, laakiin fiqigan waa xukun. waxaan waxaa tiri waa baatil, waxaan waxaa tiri waa waajib, waxaan waxaa tiri waa sunno, waxaan waxaa tiri waa mubaax, waxaan waxaa tiri waa makruuh. kaas waa axkaamti, alaxkaamu alkhamsa la yidhaahdaa, fiqigaana ka hadla. laakiin usuululfiqi waxaa la yidhaahdaa waa baatilkan xageed ka keentay, xageed ku salaysay, xaggay mas'aladan ku qotontaa. marka istinbaadka xugumka oo lala soo baxo, hadda aslaynkiina mehe ogow, aayaddii qur-aanka ahayd iyo xadiidkii lafsadiisii ma aha, laakiin inaad ka dhiraan dhiriso ood kala soo dhexbaxdo xugumkaa ayaa usuululfiqi la yidhaahdaa. maalan tusaale ahaan, khamriga waa xaaraam, xukumkiisa waad ogta. khamriga waa xaaraan oo xukumkiisa waad ogta. usuuliyiintiibaa waxay kala soo dhexbaxeen macno kale oo ah maxaa cilatu taxriim waa maxay, maxaa khamriga loo xaaraamiyey. biyahan kaleba waa la cabayaah, caanahana waa la qurqurinayaah, maxaa loo xaaraantimeeyey khamriga? khamriga waxaa loo xaaraantimeeyey liannahu yuskir, maskaxduu kaa qaadayaa, wuu kuwaalayaa, doqon iyo dabaal buu kaa dhigayaa. markaasay waxay keeneen wax alla wixii marka wax waalo oo dhan waa xaaraam. adiladii khamrigana loo adeegsanaya, adiladii khamriga ayaa loo adeegsanaya. marka u fiirso, aayaddii khamriga ahayd maa waxaan ka hadlaynaa yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru maa waxaan ka hadlaynaa, taa waa qur-aankii iyo culuumtiisii iyo tafsiirkiisii weeye. xadiidka nabigana ka hadli mayno kullu muskirin, xaraamna ka hadli mayno. laakiin usuulu fiqigu waxaa weeye macnahan istinbaadkan, macnahan caamka ah ee ujeeddadii aad ku gaadhaysee wax alla wixii maskaxda ibni aadamka wax u dhimoo waala waa xaaraam. macnahaas usuulu fiqigu macnahaasu ka hadlaya.
fahiya iyadu almabaaxithu mabaaxithtii way allatii taasoo tumakkinu makaninaysa min istinbaati alxukmi xukumka in laga soo dhambasho oo laga keensado xukumkii asharciya sharciga min adilati adiladiisa aayaddani yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru inay qaadka khusayso xageed ka keentay in ay daroogada khusayso xageed ka keentay ilan daroogada iyo khamriga horreysee daroogada hadda inay xaaraam tahay baa laisku waafaqsan yahay inay xageed ka keentay macnahan istinbaadka ah inaad la timaado wey usuulu fiqiga wey ayaad ku baranaysaa marka wa adilatu adiladiisa asharciyatu ee sharciga loo aaneeyeyna allatii taasoo tustanbatu laga soo dhambalanayo ama laga keensanayo minhaa iyada xaggeeda alaxkaamu axkaamta waaladilatu adiladii asharciyatu ee sharciga loo aaneeyey allatii adiladaasoo tustanbatu laga soo jeexanayo laga soo dhambalanayo minhaa iyada xaggeeda alaxkaamu axkaamtii hiya alqur'aanu waa qur-aanki adilada shareecada waa alqur'aanu wasunnatu sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waalijmaacu ummadda waxay ku ijmaacday waalqiyaasu iyo qiyaaskii iyo wagayri daalika weeye oo mimaa kii ah huwa isagaba mabsuutun mid maaragtay la fidiyey ah fii kutubi lusuuliyiina kutubta usuushaad oga dhargaysaa ee dib ugu noqo marka qur-aankii iyo sunnadii iyo ijmaacii iyo qiyaaskii iyo axkaamtii kale ee dee markaasi usuuliyiinta ay kutubtooda ay ku kala dhigdhigeen famacnaa dalika arrinkaa macnihiisu iyo hadalku meeshu u dhacayo waxa weeye anna usuula alfiqhi fiqiga usuushiisa huwa usuulu fiqigu cilmu usuuli lfatwa fatwada cilmigeeda usuusheeda weeye usuusha fatwadaada waxa aad ku qotomisay cilmigeeda weeye meeshay fatwadaadu ku fadhido ee aada fariisisay cilmiga iyo daraayada aad u leedahay baa usuulu fiqi la yidhaahdaa ow amase sinaacatu lfatwa waa fatwada samaynteeda inaad fatwadaba aad adigu samayso ood fatwooto usuulu fiqi inaad taqaano wey haddii kale waad banjaraysaa falxukmu xukumkii asharciyu ee sharciga ahaa wa huwa xukumka sharcigaana alxalaalu weeye walxaraamu weeye walmakruuhu weeye iyo wagayri dalika mubaaxii iyo waxaa un kaa maqan un wagayru dalika markaa waxay sheegaysaa mubaaxii iyo sunnadii baa kaa maqan alaxkaamu alkhamsa la yidhahdaa waa shantaas xifdiya shay kasta hadda waxa hareerihiina yaalloo dhan haddaad xagga fiiriso shan mid weeye waxa ama inuu xaaraam yahay inuu waajib yahay inuu sunno yahay inuu karaahiya inuu mubaax yahay wax kale soo heli maysid falxukmu asharciyu xukumkii sharciga wahuwa isaguna alxalaalu xalaashi weye walxaraamu xaraamti weye walmakruuhu weye iyo wagayru dalika oo mubaaxii iyo sunnihii ahe huwa alfiqu fiqigii weeye wa kayfiyatu istinbaati hada alxukmi xukumkaa isaga ah la soo bixitaankiisana min adilati adiladiisa aad kala soo baxdo huwa isaga usuululfiqi fiqigu usuushiisii weeye war meesha ma la gartay wa kayfiyatu istinbaati hada alxukmi xukumkan isaga ah la soo bixitaankiisa inaad soo xulato min adilatiina aad ka soo miirato huwa isaga usuululfiqi fiqiga usuushiisii weeye altadaruju fi daraasati usuuli lfiqhi jaranjaradii loo marayey markaad rabto inaad usuulu fiqiga aad maaragtay aad barato waatan soo socota kutubtu maanta magacyadooda sheegaynaa insha allah daraasatu matni alwaraqaat liimaami alxaramayni abilmacaali aljuwayniy weeye waraqaadka inaad barato oo imaamu alxaramayn aljuwayni uu leeyahay wa min shuruuxihi waxaa ka mid ah almufiidati ee faa'iidada badnaydna sharxu almaxalli iyo wa sharxu cabdalla alfawsaan ninkaas cabdalla alfawsaan la yihahdo nin sheekhu ree xijaaz ah kitaabka sharaxa uu saaray iyo kaas la yihahdo almaxalli aad bay u qiimo badayin aadna waa loo sharxay hadda kitaabka isaga ah daraasatu kitaabi allumac lilimaam alxaramayn isna waad baran kartaa daraasatu minhaaj albaydaawi ninkii ragga ahaa minhaajkiisiina waad baran kartaa ow amase jamcu ljawaamic lisubkiyi alimaam subki kitaabkiisa jamcu ljawaamic la yidhaahdo hadda culimmadeenna soomaalida sida caalimkeena sheekh shibille iyo ay runtii ay sharxeenna oo ay af soomaali ku laqbeeyeenna waad daraasayn kartaa hada wallahu aclam wsali allahuma calaa sayidina muxamedi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin taariikhdii iyo waxaa inoo dhiman culumtii shareecada iyo luqadii kadibna kitaabkeennii waa gabagaboobaya insha allahu haddii ilaah yidhaahdo darsi ama laba dersi baa inooga dhiman
هل الديار قروبه امتحان كينا هل ديار قروبه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.